السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن oo wanaagsan daawadayaal iyo dhageystayaal kusoo dhawaada kanaalkii Ajmal Production oo aad ka sugeyseen ama aad kaga barateen casharo ku saabsan editingka iyo waliba sidoo kale casharo la xiriira arrimaha bulshada ama socialka. waxaan maanta bilaabi doonaa ama halkan cashirkii koowaad ku qaadan doonaa maadada la yiraahdo video editing programka Camtasia Studio. Camtasia Studio sababta ugu weyn aan usoo qaato waxay tahay waxaa jira program badan oo lagu sameeyo editingka sida Sony Vegas, Premiere Pro, Camtasia iyo waliba program badan. Marka Camtasia sababta waxay tahay Camtasia runtii waa fududahay ama dadka bilowga ah waa u fududahay waana program useful ah oo runtii wax walba aad ka helaysid inkastoo laga hormarsan yahay oo Premiere Pro iyo waliba Sony Vegas iyo waliba Final Cut Pro ay ka runtii hormarsan yihiin maadaama ay professional yihiin laakiin programka Camtasia waa program isticmaalkiisa fudud yahay wax walbana halkaas ay ku diyaarsan yihiin qofkii bilaaw ahna uu fahmi karo. Marka asiga ayaan bilaaweynaa maanta waxaan qaadanaynaa waa cashirka koowaad waxaan kaga hadlaynaa qaabka aad usoo degsan lahayd. Okay, hadda waxaa joogtaa wejiga koowaad ama wejiga koowaad ee Google marka waxaa ku qortaa ka raadisaa Camtasia Studio 8 9 iyo 9 jira laakiin 9ka runtii waxaan filayaa waa aad buu runtii culus yahay oo kombiyuutarada RAM-ka ku xiran yahay ana hadda RAM-ka isticmaalaya waa 8 laakiin insha Allah dhawaan baan model rabaa 24 marka haddaad isticmaalayso kombiyuutarka RAM-ka iyo 2 uu yahay ama 4 uu yahay 9 ha isku isticmaali 9 ma isticmaali kartid waa culus yahay waa program runtii kombiyuutarkada waa editingka ma edit gareyn kartid oo waqti ka lumaya markaad muuqaalkada dhamaystirta ayuu programka isxiraya waxa waa runtii waa adag yahay soo kaco duubitaanka waa adag yahay codka sidoo kale waa ma haboona marka mid kale aan ku sheegaya programkan waxa uu adeegsadaa oo kaliya yahay mar camera uu adeegsadaa oo kaliya editingka laakiin codka waxaan ku duubaa telefonkeyga waxaan haystaa microphone yar oo loogu talagalay telefonka kaas ayaan codka ku duubaa laakiin muuqaalka kamerada ama laptop ku duubayo Camtasia ku duubaa asiga ayaan ku dhigarayaa marka talada waxa waaye 9ka isku isticmaal 8ka isticmaal. Okay, halka markay imaato saa u jeedin qaybtan midigta Camtasia lacagteedu waa 249 ee programka la gaba $249 free shipping waaye hadii aad joogto wadamo aan Soomaaliya ahayn waayo Soomaaliya shipment lagu sameeyo hadii aad rabto inaad isticmaasho barnaamijkaasi premium kama aad geetid waxaad u dirsan kartaa asxaabtada kala jooga adduunka dacaladiisa meel aan ahayn Soomaaliya oo waliba Afrika aan ahayn ka fiican Afrika wadana Aasiya kale ama Europe kale ama America waa u dirsan kartaa qofkaas waa shipping waa caadi kadibna ku soo diri karaa asaga ku soo diri karaa. Okay, marka halkan waxa ujeedaan screen recording video editing software Camtasia Smith. Okay, linkigaas ku dhufanayna halka wuxuu nageenayaa marka website-ka rasmiga ah ee Camtasia Studio nageenaya kadib ayaan tusayaa waxyaabaha sameyn lahayd ama qaabka loo soo degi lahayd. Okay, halkan waxaa wajeedaa ama una keenay Camtasia Studio bogiisa halkan variable hoose free trial waxa la yiraahdo leeyahay marka waxaan isticmaalayna trialkaas marka dad kila ku sii hada trialkaas runtii download ayuu sameynaya laba option siinaya oo leeyahay maxaa isticmaashaa ma window ba isticmaashaa mise Mac isticmaashaa. Okay, window ba isticmaalaan leeyahay kadib sign in ayuu ku leeyahay marka waxa dhiba maahan waa emailkaada gelinaysaa halkan emailkaada geli alla emailkan gelina dadku markaad emailkaada iyo passwordkaada gelido wuxuu ku weydiinayaa waxa aad u isticmaali doontid Camtasia waxaa leeyahay marka
education lessons aan leh aniga maadaama aan u isticmaalo runtii inaan ku sameeyo casharo kadib halkan uu keenayaa downloadkina waa bilaawda soo jeedeen marka downloadkiina waa kaas ahaa marka waan filay inaa fahantay markaad soo dejisato qaabka loo install gareeyo waa taqaanaa waxaad dooranaysaa oo kaliyahay trialka oo 3 maalmood ah marka aniga igu jira programkan marka mar labaad kuma shubi karo marka waan filay inaan ka faa'iidaystay ama aad baratay qaabka loo soo dejiyo ama meesha laga helo Camtasia Studio programka gaar ahaan versionka 8 haddii aad RAM computerka RAM-kiisa oo runtii 12 ama 24 ama 3 uu yahana nine waa isticmaali kartaa marka waxaan filan ka faa'iidaystay fadlan haddii aad ku cusub channelkan subscribe garay sidoo kale sii share garay muuqaalkan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.